waxaa farxad weyn ah in aynu mar labaad isugu nimi sanad guuradii lagu aasaasay hoggaanka badbaadada iyo midnimada gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. waxaynu isla qaybsanaynaa dareenka wanaagsan ee farxadda ah. waxaynu u mahadcelinaynaa rabbiga inoo suurtageliyey nabadgelyada iyo caafimaadka iyo haleelitaanka inaynu isu nimaadno innagoo sideed
waxaan wax ka cusubay marxaladda guud ee maanta aynu ku sugannahay deegaanadeena iyo wacyiga Soomaaliyeed oo dhan oo aad oran karto qoraxdii soo baxdaba waxbaa ka dhacaya dhib baa sii gelaya hoos bay usii ragaanaysaa cid u maqaana ma jirto qof kasta oo qaangaar ah oo caaqil ah oo baalig ah mas-uuliyadda qarankii Soomaaliyeed oo dhan way saaran tahay iyo inaan u hayaan intaasna waxaa nasiib darro ah dadka dhibaatada ku haya Soomaaliya in kuwii dulmiyada oo wadada shisheeyaha iyagii wax inoo weydiinayaan iyagaa wax laynoo weydiinayaan war maanta Soomaaliya dowladda kama jirta taa ogaan wax yaroo magacaabo telefishinada baa ka jira intiina dawacooyin baa anaa haysta dib waxaa ku shaqaysa dada jeceliya maqarin karta dadkeena hayiga iyo waari musafeen iyo wax lamida ka taliya waxayna u adeegaan oo ku qaraabta kuwa dadka ugu garashada hooseeya oo iyagu magacyo uga baxeen waxaan leenahay qarankeena aan ula ducayno dadka Soomaaliyeedna aan wacyi gelino waxay kugu qasbanahay oo baahideena qabnaa inaan ka daaray midnimo Soomaaliyeed Soomaaliya waxaynu taageersanahay midnimada Soomaaliya ee qarankii Soomaaliyeed oo dib u soo noolaadaan waxaynu ka bilaanaynaa gurigeena aan dambiga ku ahayn cidna kuma gardaroomayno waxaynu diidaynaa waa dulmiga iyo danaha qof leeyahay iyo awrkacsiga waxaan u lahaa Puntland maanaan lahanin waxa weeye dadku wax way wada samaystaan laakiin danaynta iyo awrkacsi gaar ah cid aqbashaa ma jirto halka ay taagan tahay waxaynu leenahay taladii baynu helnay haddaynu nahay shacabkiisa si waynu wanaagsannahay shirkaas soo socdana dhammaantiin wada taageera waxaa farxad weyniya kal hore markii aynu halkan isugu imaan jirnay dadkii halkan wada joogi jiray wejiyo ka duwan oo badanna way joogaan taasina waa midnimadeena waa fursad inoo suura gashay ilaahay baynu ku mahadinaa intii naga maqanna waynu doonaynaa waxaanu leenahay dan gaara ma kala lihin ma jiro qof magaca oo ka hooseeya beesha aynu nahay ee gumbaan qof ku ceebaysan magacaa guud baynu ama sharaf ku wada helaynaa ama aynu ku wada ceebaysannahay qofkii isku daya meel ka hooseysa inuu sharaf ku helo waa beentaa kuma heli karto aqalkeednu hadduu kor ka qurux badan yahay waa magaceenna guuya waynu wada qurux badanna haddii qol ka mida qurux badan aad degan tahay aqalkuna kor ka foorxu yahayna cidina kuma oga